maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah halyeeyadii soo maray dalka Soomaaliya. Si qaas ah waxaan u fiiri doonaa gacaankii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay page-kan, ha hilmaamin inaad saarto like iyo follow. Dhinaca waqooyi ee Ingiriiska gumaysan jiray waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaqii ugu weynaa iyo halgankii Soomaalida kala horjeesatay gumaystayaasha, aadna u saameeyay taariikhda cusub ee Soomaaliya iyo gacaankii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Diintu waxay weligeed ka mid ahayd tiirarka ay ku dhisan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. Dowladihii u horreeyay ee ka dhashay Soomaaliya waxay ahaayeen kuwo ku dhisan diinta Islaamka sida Saylac, Cifaad iyo Hareer. Sidaa darteed waxaa la yaab lahayn in dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay ee lagala hortago gumaystaha ay hogaaminayeen niman culamo ahi. Waxaa weeliyay ururka kaliya ee ku dhisnaa nidaamka kana baxsanaa qabiilka inay ahaayeen dariiqooyinka. Qarnigii 19aad gudaha Soomaaliya waxaa ka jiray oo xoog ku lahaa laba dariiqo kuwaas oo kala ahaa Qaadiriya iyo Axmediya. Qarnigii 19aad dabayaaqadiisii waxaa soo korortay Saalixiya oo ka tirsaneyd Axmediya oo uu aasaasay Sayid Maxamed Saalax sanadii 1853 ilaa 1917. Dariiqadaas oo ahayd mid isku howsha adkeynta diinta iyo gacaameynta dadka muslimka ahi, waxaana ka tirsanaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo ku qaaday gumaystaha halkan soconaya 20 sano. Intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo gacaankii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdilaahi Abuukar Maxamed Cabdullaahi Socdaal. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgeno.